رئيس الوزراء الصومالي مدني حسن علي خيره ayaa kormeer uu ku xogogaanayay nolosha shacabka ee tan amni ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ka mid tahay degmada Hilwaa goobihii uu tagay ayuu dhammaan bulshada ku nool ka dhageystay talooyin tabashooyin iyo aragtida ku aadan sida looga bixi karo xaaladda tabasho ay dareemayaan si dalkeena horumarkiisa taabagelintiisa saldhig looga dhigo aragtida wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed رئيس الوزراء خيره ayaa odayaasha dhaqanka ee dhalinyarada si isku mid ah waqti ula qaadanaya taasoo fursad u siisay inay u sheegtaan baahidooda kala duwan isla markaana ay u soo bandhigaan talooyin ku qotomay dawlad jacayl iyo horumar gaarsiinta dalkeena hadda waa isbitaal marka ayaan cabsin soo goobaha ay dadku isugu yimaadaan ka sokow waxa uu booqday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isbitaallo ku yaala degmooyinkii uu kormeeray qaarkood oo bixiya adeegyo caafimaad maamulada ayuuna ka dhageystay warbixin ku aadan xaaladda ku shaqeeyaan isbitaallada dadku uu kula kulmay degmooyinka uu kormeeray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxay ku amaaneen sida uu markasta fursad ugu siinayo dadka aan awoodin inay tagaan xafiiskiisa isla markaana ay ku jirto talooyin Soomaaliyeedsan ee wax badan ku soo kordhinaysa hoggaanka dalka laakiin muhiim waa in la dhageysto muhiim wax badan oo siyaasiyiin badan iyo odayaasha laga yaabo inay ka buuxayaan anaga naga buuxayo horumarka dalka ah oo dhalinyarada iyo wadajirka iyo mataqaanaa dawladnimada la ilaashada marka aad ugu mahadcelinayna in madaxda waxaan ka codsanaynaa inoo badiyaan kulamaha macna aad u mahadsantahay aad u fariid dalka aad u faraxsanahay ma jirin wax dawladan ama dawladii ka horeysay in madaxda dalka ay macnaha si public kaliya dadka uga maadaan arrin security waxa ku jira weyn marka in macnaha kalsooni zaid inta soo qaadid meel public looga yimaatid dadkan Soomaaliyeed ab kalsoonaatid aad ugu faraxsanahay waana barnaamij horumar ah dalka oo si gaar ah marwalba marka in kulamada oo caynkan oo kale la badiyo dhalinyarada jaanis ay helaan madaxda ay la kulmaan aad ugu faraxsanahay kormeerkan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre uu ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa qayb ka ah qorshaha dawladnimada lagu dhaweynayo shacabka Soomaaliyeed si u suurta gasho in baahidooda lagu saleeyo waxyaabaha ay dawladdu siinayso muhiimadda taasina waxay ku imaan kartaa isku xirnaansho u dhaxeeya dawladda iyo shacabkeeda Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho